wadaad baagamuudaa ee wax camala aan lahayn ee aan qorshe adduunyada ku joogin ee xilligii la yiraahdo xaafada qurbaan iyo baraka ka jirta iska soo boodaya ay horta Soomaalidu rabaan waxa leeyla wadaagay codad oo dadku uu ku leeyahay dhiiqada aniga ku geliyay anaana ku dhaqaayeen nin la dhaqi kara ma tahay oo maxaa igu dhaqay lacag soo dir annaka oo socono oo ciidi aadnay oo musallihi ciida joogno ayaa inta sawir nagala qaatay ma naqaan goormee nagala qaatay war kama hayno gaariyaan ka degnay musalli ciidkii aan u soconaa heysana la saaraba bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaa mahadle ilaahay goynayna abuuray diin dhamaystiran noogu deeqay muslimiin mawaadii afkaar umaysan naga dhigay kilibkan wuxuu ku saabsan yahay mahadnaq culimo dhowr wadan kala joogto Gaalkacyo iyo Garowe iyo Kismaayo iyo Nairobi iyo London iyo Turkiga ayaa rabaa inaan u mahad celiyo nala soo xiriiray talo iyo duco iyo dardaaran aan ka helnay Allahu Rabbul Alamin khayrha ha ka siiyo marka xigto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshadii Gaalkacyo qaybta Buntland isimo iyo ducaad iyo ganacsato iyo aqoon-yahano sharti Gaalkacyo la damacsanay oo ahayd in bulshadii soddonka maalmood xirtay maalinkiina afkooda Allahu Rabbul Alamin uu xirnaa quraanka akhriskiisa ay badinayeen habeenkiina qiyaam ay taagnaayeen tobankii dambe bisha Ramadaan juhdigii iyo dadaalkii ay 20kii Ramadaanka ayna bixin mid ka badan bay bixiyeen dadkii damacsanaay waqtigooda iyo xoolahooda inay jahannamo ku carbuntaan diidmadii ay ka diideen ayaan ugu mahad celinayaa gaar ahaan dadkii showgii ninka walaalkeena ee dhalinyarada oo waday diiday mid baan ula socday ayaan u mahad celinayaa dhammaan reer Gaalkacyo qaybta reer Buntland Allah ni barakeeyo dhamaantiin marka xigto waxaan rabaa inaan mahad u diro dadkii shakhsiyadeeda ila soo xiriiray ee ducaada ahaa ee mudarrisiinta ahaa ee masaajida wax ka la qabeynayay ee duco iyo talo iyo garab istaag noo balan qaaday ayakana waa u mahad celinayaa guud ahaan dadka aniga igu xiran oo mar walbo dulqaadka iyo giigsiga aniga igula dardaarmo ay yiraahdo sabar dulqaado ayakana waa u mahad celinayaa waxaan rabaa marka waa kuma Sheekh Shantaay maanta kadib mar raba in la weydiiyo anigu shacabka Soomaaliyeed degmo iyo gobol ay ku nool yihiin waxaan ka aaminsanahay inay yihiin dad muslima oo ahlu tawxiid ah ma jeceliin umada in laga waaliyo laakiin Soomaalida waxaan rabaa wixii runa inay aqbalaan Soomaalidu waxay yiraahdaan wadaadada xurmo uma hayaan waxay yiraahdaan wadaad waa in la heli karaa ay dhaheen wadaad ninka la yiraahdo waa in la heli karaa maxaa waaye aan jilcino wadaad baagamuudaa ee wax camala aan lahayn ee aan qorshe adduunyada ku joogin ee xilligii la yiraahdo xaafada qurbaan iyo baraka ka jirta iska soo boodaya ay horta Soomaalidu rabaan koo waxay yiraahdeen wadaad waa in la heli karaa ma hawa hadii loo baahdo in la waayo waa baagamuudo soo ma jeedid waxay kaloo yiraahdeen waa in la habi karaa wadaadka wixii loo soo taago waa inuu liqi karaa xalaal iyo xaraam inuu weydiiyo ma aha isbaariisaan ahay xaaskii ii dhashay
waqlalkii ilmaha ka soo qayb gal uu yaqaanaa jidgooya u taalo musaafirkii salaada la yiri gaabi ayuu jidgooyo u dhigtay musaafirkii la yiri ruqsa qaaday bisha ramadaan cunuu jidgooyo u dhigtay ninka hadduu ku yeero xoolihiisa cun saabuunka oo ku siiyana hore u soo qaaday guriga keenso waxay kale Soomaalidu kuma maahan waxay dheen waa in la haysan karaa wadaad baaga muudaa ee xataa hadduu ku soo ajiibo aan ku dhehniyo waqtigiigu waa ciriiri intaas baan haayaa Soomaalidu ma jecla wadaad maanta oo dhan muska iskaga jira ee wixii loo keenay cabaaya wixii loo keenay cunayay rabaan wadaad ragga ee biilkiisa dhacsada xaqana caday kara Soomaalidu ma jecla guud ahaan dadka baraha bulshada ku jiro ee aqyaarta ayaan rabaa inaan fariin u diro ninka wariyaha ee Sweden joogo ee walaalkeen ah waxaan rabaa ninka in la qabto shariicadu islaamku waxay u timiday oo kow ka ah xifdu diin in diinta la ilaaliyo way naga wada dhaxaysaa cidii talana siinayso waan ka dhigaysanaynaa cidina dhaliilayso waan aqbalaynaa masjidka haday noogu imaanayso waan ku soo dhaweynaynaa Garowe Gaalkacyo Kismaayo London Turkey Kenya ayaa nagala soo wacay nin walbana warkiisu waan dhageysana waan aqbalaynaa warka culimada laakiin nimanka cirdiga muslimiinta inay baneystaan caadaystay ee warbixinada qaldan dadka ka sameeya waxa la iga soo wacay aniga hadda ninka Sweden joogay aniga imaagay ee wariyaha ee calool iyo wixii ka hooseeya ka fikira ee dadka shilimaad ku caaya Malaysia Muqdisho Boosaaso Uganda Kenya Turkiga 7 meelood baa la iga soo wacay qof walbana uu leeyahay hay'adaasan madax ka ahay kambaniga ayaan leeyahay dadka oo dhan markaan eegay waa dad adduunyo haysto amba dad muuqdo qof walbo uu maagay waxa leeyla wadaagay codad oo dadku uu ku leeyahay dhiiqada aniga ku geliyay anaana ku dhaqaayay nin la dhaqi kara ma tahay oo maxaa igu dhaqay lacag soo dir shariicada islaamku ma ogola in dadka sharaftooda lagu ciyaaro islaamkuna wuu diiday bulshada marka Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa sawarkan Sheekh Shantay kaliya ku aadan waxba ma taray waxaan rabnaa sabra waa idhahdeen waana aqbalay waana qaadanaynaa war dadka sharaftooda ku ciyaaraya ay cirdigooda ku ciyaaraya ay been abuurka sameynaya walaalayaalow saad aniga ii raadiseen inta u raadisaan walaalow ilaahay ka baq walaalow ummadan qabiil hore ugu soo daashay anigu qabyaalada waxaan ka aaminsanahay cudur xun oo adduuniya aakhiradeena haleeyay inuu yahay mana ogoli in dib loogu noqdo ilaahayna hanaga badbaadiyo nabigu sallallahu alayhi wa sallama saxaabadu markuu walaaleeyay oo Madiina uu tagay ee caasimadii muslimiinta ay naqatay waxa isku dhacay nin muhaajira iyo nin ansaari nin walba qoladii uu ka tirsanaay buu wacday nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuu xanaaqay wuxuu yiri da'uha fa innaha muntina qabyaladu wa qurni qabyalada ka taga xadiisku Bukhari ku yaala dadka marka Garowe iyo Gaalkacyo iyo meelaha la midka fariimaha noogu soo diraya ayna la talinaya waxaan rabnaa dadka sharaftooda caadaystay ee calool iyo wax ka hooseeya ka fikiraya ee mabda iyo diin iyo dhaqan umada u ilaali waayay waxa la rabaa umada in la tuso ama umada looga digo nimanka maalin walba ciiday majaha haystaan been abuur bay fidiyaan nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu kaloo tilmaamay ruuxa waxa dimbi ugu filan wuxuu maqlay inuu ka shakeeyo kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bi kulli ma sami'a qofka waxa dimbi ugu filan wuxuu maqlo inuu wareejiyo fa ogtiin maanta majahana la haystaa
annagoo socono oo ciidii aadnay oo musallihii ciidda joogno ayaa inta sawir nagala qaatay ma naqaan goormee nagala qaatay war kama hayno gaariyaan ka degnay musalli ciidkii aan u soconaa heesaana la saaraba u fiirsada walaalahayo maanta dad baa lacag ka raadinaya waa muslimiin allahu rabb alcaalamiin wuxuuna amray quudka iyo sharaabkayna inuu xalaal yahay in markaa yacni dacwadan halka darafa ma socohayso sheekh shantaayo sabar sheekh shantaayo waxaa tahay nin daaciya waxaa tahay nin muraayada waan aqbalay dadku waa dad muslimay xaqaynu leeyihiin war wixiinu dhaqan muslim ma ahaan saanna muslim uma hadla maxaa yeelay muslimka ruuxa muslimka ma caytamo been abuur ma yaqaan laa yanbagii lilmu'mini an yakuuna lacaanan nabigu wuxuu leeyahy sal alayhi wasalam ma haboona mu'minku inuu noqdo ruux wax lacnada af xun faaxish ah ilaahay nagama dhigo waan aqbalaynaa يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا يسروا فضضية ولا تعسروا هعسليننا وبشروا بشارية دتك الدين تهكي إيريننا وان كرغمينا لكن محاربنا إن دعوة أي لوضع نعنقت دتك ودد مسلمة ويباديو بيان هذه مالي والبعايتم iyo been abuur iyo foolxumo ay ka shaqeeyaan dadku way dhumayaan allahu rabb alcaalamiin baa dadka wuxuu amray hadalka inay siiqadiisa ay hagaajiyaan waquluu linnaasi xusnan wa amar waquluu dhaha linnaasi dadka ku dhaha xusnan sood wanaagsan oo jilicsan walaalkay walaashay habaryartay eedaday dheh waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo shiiqayga sheekh mukhtaar sheekh xasan uul oo london iga soo wacay aan ka ballan qaaday wadaad iyo fanaan iyo caamo iyo haween intaba inaan u jawaabin maxaa yeelay diin kitaabku aadaab buu u baahan yahay culummada in la dhegaysto la xurmeeyo cilmiga loo daba fadhiisto qofku markuu wanaag wado aniga waa walaalkay waa dhegaysanaya ballamihii aan hore u qaadnay marka taas baa baajisay gaar ahaan dadka aniga igu xiran ayaan u mahad celinayaa runtii dadku ma oga maalin walbo hadday dibad joogaan iyo hadday dalka joogaanba fariin bay ii soo diraan sheekh shantaayow waxaan rabnaa allahu rabbulcaalamiin inaan raali gelino nebiga sala allahu calayhi wasalam wixii lagu sameeyey inaan ku sabarno nabiga shaacir baa la yidhi saaxir baa la yidhi majnuun baa la yidhi kadaab baa la yidhi makaa laga saaray mandheer baa dhabarka laga saaray waa la cunuqabateeyey waa la sixray fanaxdiisiyaa la jibiyey dhiiggiisiyaa la daadiyey reerkiisiyaa loo gafay wuu sabray annaka garbahaagayaan nahay inaad sabarto oy diinta islaamku maqsuudka aan wadno inay noqoto oo aadan cirdigaaga iyo sharaftaada aadan difaacin baan rabnaa waan aqbalay laakiin waxaa loo baahan yahay waxa loo sabri karo iyo waxaan loo sabri karin inaad kala ogaataan dadkana haysto anigu waxaan ka aaminsanahay inay dad muslima yihiin waa dadka aniga iiga faa'id waa dadka iiga been abuuraya muslim inay yihiin aan ka aaminsanahay ayaka naftooda xuquuq bay leeyihiine war inta raadisaan war ilaahay ka baqa aada u mahadsantihiin insha allahu tacaala balankaygu wuxuu yahay markaa in dadka ducaadu waa labo midna qabyaalad baa ka guuxayso oo hadalkayga ugu dambeeya kuwa ay qabyaaladu ka guuxayso ee yaa qowmi ay la weyn tahay waan isgarbaashaynaa kuwa taladoodu ay tahay in dadka loo sabro la dulqaato dadka aan lagu dayan aan loo jawaabin siiqada hadalka la dhimriyo dadka loo sabro watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri waan qaadanaynaa warkooda waana walaalahayn meel walba ay joogaanna waan u mahad celinaynaa kuwa ay qabyaaladu ka guuxayso waa xisaabtamaynaa
aad baan u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.